ورينا تخش شيت مربسها ورد غسل دات قامت اوكي. والله بالله تلاهي واياب ويلشان Soomaalida oo dhaxayaan abayo kala waxaan ku sheegayaa abayo halkaasiga joog ani adisku meel ma I saw them at the club smoking, drinking, dancing. Also, Auntie, you was there at the club where people smoke and drink? London. Hi guys, we out here chilling, chilling. Please be aware that for your safety, this station's monitor just closed. Speaks for us. Where we came from, nigga. Remember? Hey, stop. Hey, it's me, Salahuddin, your boy. Hey, what the fuck, man? What the fuck man get that This is my already? video clip. Stop interrupting. Video clip. And No. this is my Friday video. Okay, please, can you please be so respectful? No Hey. respectful. No beautiful. No, what? don't steal my language. You don't know anything about English. Oh, I Stop got no. speak English, man. Otherwise, I'll go. Okay, wait. Hey. Okay. Hi guys, this is Oh, don't speak English. You know Somali. I will talk to Somali. I'm not talking talk to my Adan. talk about Hey, my lovely Adan people. I'm you. My I say, no yeah. Adam people garables. Waxa lay middle black people. No. Black. Hey, only the white people in European fucking country. لا فاهم ازاي It's like fucking. This is Somaliland. No English لا فاهم No Somali. No English. Somaliland is good. Like we need some Adan here. No baa xatar. Madowga loo baahay badan. No. We need some people to War speak is gonna like towards is a dangerous man. No, we need some people that's No. healthy, yeah, No. to watch them. Hadaa people waxay noo baraya akhlaaq xumo iyo waxay No, man, they are making the country beautiful, War- everything. War- Our condition. our muxuu wadankeena wax qurxinaya waa dadka madow Everybody, he's coming into the views. alceeda soo So jiidaya don't listen to him. Kuan Yeah. your boy is, oh man, This is take it the- easy. I know Somali in Ai. I'm gonna see you bachun Ai kala wada. amba sidoo kale wallahi waan qaaday ingiriiska fuck baby wallahi wili aakhir baby No. Hey, bye everybody. If you're done, peace of. every adam Peace and love. fuck you No, don't fuck Adan. adam Adan is good. Hey, everybody Adan. Good. waxa ii sheegaya waa iga baxaya dadka caawiya isagu baxdiin fuck you wili giba kibirka se isku qaaqaadaday midda way kacsantahay yaa ka waale abay cirkaa maraysaa dhulka u soo dhaadhac weligaa ma isweydiisan gabdhaha Soomaaliyeed maxay la futa waaweyn yihiin? su-aasha waxaa jawaabteed waxaa waaye gabar Soomaaliya bubil ku dhuusaysa weligaa ma aragtay maya si aari iska ku celinayso barsi buufin camal abaa iska neefso wallaahi bil caafimaad ka mid tahay laguma dhihin waa dembi haddaad dhuustid waxyaalo ka daranaa jira iska neefso cudur waa la iskuma celiyo markay ku qabato meel geeskaa la aado sida استريح مش نفتح قسم يا أختي نفتح قسم يا أختي alla guriga eegay sidan ku qonqonin marka guriga halkaad isku dhistay dee waa maalintii jaceelka naahandhig haabadii cagaha madoole magaalada ka fadhiiso maalintii jaceelka maxaa ku bari reer miyad yahay oranjigana soo meer ma tvgii baa shitay dami السلام عليكم أمود الصومالية ماشا جوكتامبا هرت الجمعة مبارك وحير بان رباينا نيجلا هدلو أرين يربان رباينا نيجلا هدلو أرين تاسنا وحاويان
please, it is very, very important in ana wax iska saxiixin. I am talking about any written contracts, anything to do with the legal matters, anything that you don't understand. Please, iska ilaali ina wax la iska saxiixo. Dad badan baa bool ku dhaceen intii wax iska saxiixeen oo na fahmin. Hadhowtu, that is against you noqonaysa when it comes to anything. So please, waxyaalaha la iska saxiixaya joojiya. If you don't understand, sometimes I understand waxay noqon kartaa, you know, meel marka joogto waxay kaaga dhigayaan pressure. Waxaa lagu leeyahay saxiix. waxba ha saxiixin. The way oo uga bixi kartid waxaa weeyaan, I don't understand. I need a translator. Ma fahmayaba. Fahante? If not, no, waxaa dhihi kartaa, I need to seek legal advice before I sign anything. But if you're in any situation or they make it very difficult for you, or could hire and you have to sign, please, the whole iska dhiga. I don't understand. I need to get a second opinion. I need to get a translator. Ma fahmade. Because waxaa ogaataan waxyaalaha badan la iska saxiixay when it comes to anything, when it comes to school, when it comes to dhakhtar, when it comes to social services, anything to do with that. wax aan fahansanayn ha iska saxiixina. Hooyooyinkana, I want to give you a little advice. Hooyooyinka waxaan leeyahay, please, I understand gabdhaha yaryar, you know, waan fahmaynaa anaga af Ingiriiska, dadku waa iska celin karnaa, wax waa daafici karnaa. Laakiin hooyooyinka waxaan leeyahay, please, at least, you know, I understand ciyaala yaryara haysanaa is very difficult nowadays. Like hal wax baa niga codsanaya. Once a week xataa waxaad aadaan Ingiriiska soo barta. It is very important. The reading, the writing, it is very important. Haddaa hooyanahay, we have to be very active when it comes to the schools, when it comes to the dhakhtarka, when it comes to anything. You have to be able in hada shid. Anything to do with your child, you have to be able to communicate with the schools, because nowadays waxaa jira a lot of communication barriers oo dhacaan hooyooyinka iskoolka dhakhtarka. Ma fahantay? So please, hooyooyinka haddaana bixi karin, haddaa college aadi karin, internetka laga bartaa. Internetka afka ka barta. Please, hooyooyin oo dadaala. wax walba ku dadaala. Anything, haddii form kuu soo dhacdo, haddaana wax fahmin, Google up in the internet. What does that mean? Energy saara, focus, because waxyaalo badan baan arkaa hooyooyin badan oo wixina aqoonin iska saxiixaan oo hadhowtu markii maxkamad timaado, that is evidence against you. So please, waxaan leeyahay, don't sign anything that you don't know. And the other thing, hadana, if you are in a very difficult position or na fahmi karin or you really think or xaqaaga aqoonin, waxaa samayn kartaa secretly, teleefankaaga ku duubi kartaa, put it in your pocket. Very simple, teleefankaaga, record it, put it in your pocket, because that will be evidence for you. Maadaama na qofno kula joogin, kula soconin, translator, lawyer, anything a haysanin, hadhowto, that is your evidence. So please, waxaan leeyahay Soomaaliya waxyaalaha iska saxiixaysan joojiya. If you don't understand, simply tell them, I don't understand, I'm going to seek legal advice, or I just don't speak the English, I need to find a translator. Anything is better than ta wax iska saxiixi lahayd. Okay? Waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum. kan kalarkiisa waa maxay? Kalara. naa waxay toobkan yar gaabanay tusid ciyaal suuqad yahay. la'aan baa idin haysa. naama toob cad baan ku diray mise toob caas. handhig ka batay. ma waxaasan u raadiyaa? maskaxdaada waa biye.